بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد برنامج عصب كلمات خالدات وإريو أما كلمة لحل قلة ولا ليال. موضوعنا كوباد وحان كغا هادلينا لبادن مid noqon kee tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam maalimaha kamida isagoo asxaabtiisa la jooga waxa la soo agmariyay janaaza la wado meyd la wado. nabigu waxa uu yiri mustariihun wa mustarahun minhu. الصحابة ويدين وحي هذين رسول الله مستريح ومستراح منه آياتري ام حيك دغان تahay. نبيgu waxa uu yiri عليه الصلاة والسلام adoonka mu'minka ah marka uu dhinto waxa uu ka reexaysanaya min ada dunya wa nasabiha. adduunka iyo dhibaatadiisi iyo daalkiisi iyo rafaadkiisi ayuu ka reexaysanaya. كاسي ومستريح كاللبادي ومستراح منه. وأدونك أبو النبي مجرمك فاجرك الدنبيلها وحاكر حيسنا يبو النبي يقول مركا أردنتو العباد والبلاد والشجر والدواب. وحاكر حيسنا يا الدومد إلهي يا قلك إلهي يا جيدها يا حيوانك أردني وكر حيسانيان أيولي النبي عليه الصلاة والسلام. لبضا سي متكيتهاي سويدي الدون كان ددك لمن يأردن لبضا ومدو أما ومستريح ومدر حيسانيا ودباتدا الدون كإي رفات كالدون كأكر حيسانيا إيا مد الدومد إلهي أي كر حيسانيان كن سانيان dhimashadiisa ay ku farxayaan. walaalayaal qofka mu'minka wuxuu garanayaa adduunkani in laga tagi doono. wuxuu garanayaa qofka mu'minka adduunkani in laga tagayo oo la dhimanayo. dhimashaduna inay tahay wax laazima oo qof walba oo nool uu ku xukuman yahay dil. qof walba wuxuu ku xukuman yahay dil. نبي محمد با عليه الصلاة والسلام دنتي وإلهي كلها إنك ميت وإنهم ميتون. نبي الله ودماني إيكون ودمانيان بل إلهي النبي جيسا وحا أكويري نبي الله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. نبي الله أنبياء دي يدتك كاهوري يقف أدلذا كواري ملئ adigu haddaad dhimatid ma iyaka waari. adiga oo rasuulkii ilaahaya haddii aad dhimatid ma iyaka yaa waari. idan qof walba wuxuu garanayaa mu'minku qof walba oo adduunkan jooga inuu dhimanayo. sida awgeed markay dhimashadu ay timaadana qof dib loo dhigaya male. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إلهي وحول مركي أجشودو أي تمادو لمشدودو إن يرنا دب لو دغ مايو كان سوهرين ميسو وقتيغا إيمانيسا. سيدا أوجد قفك من مؤمنك كمول بهارو كما عبصد لمشدو وحق كما عبصد لمشدو. سيدا أوجد سعيد ابن جبير تابعي وينا مفسر كأها حجاج ابن يوسف الثقفي نكي لأورنيي أي أهجبي وحاكويري وانكو دلي. سعيد سقو أو دقن أو قرنا يدي مشادا إيا نلاشا إني بيد الله قعنت إلهي أي كجرتو وإسكو كرسون أيا وحاكويري لو علمت أن الموت والحياة بيدك ما عبدت إلها غيرك. هدان أغهي dhimashada iyo nolosha inaad adigu haysid de ilaah aan adiga ahayn ba macbudeen buu yiri ay waxba qacanta kuma haysid adoon yahow miskiin baa tahay ayuu ku yiri. idan qofka mu'minka
kama cabsanayo dhimashada maxaa yeelay dhimashadu waa wadadii ay kaga horeeyeen ay mareen anbiyaadii iyo saalixiintii iyo shuhadaadii iyo sidiiqiintii waa wada la wala maray qofka mu'minkii kama walbahaarayo waa raad uu qof walbi u qaadayo idan axibatii fi llaah wa ayo qofka mustariixa ah ee nasanaya dhimashada marka uu sidaa u dhinto ayay u bilaamaysaa nasashadii qofkaasi waa qofka fahmay nolosha adduunka xaqiiqadeeda fahmay waa qofka u diyaar garoobay aakhiro u diyaar garoobaya wuxuu garanayaa adduunkan in laga tegayo uu diyaar garoobayaa uu isku diyaarinayaa ilaah inuu la kulmo ayuu isku diyaarinayaa waa qof addoommada waxooga aan cunin iska ilaalinaya uu garanaya aakhiro inay sugayso waa qof xambaaraya hamiga diintan noloshan fahmay wuxuu garanayaa noloshan gebigeegu noloshani inay tahay imtixaan inay tahay meel yaroo gaaban waqti yaroo gaaban la marayo uu fahmayaa hamigiisu waa aakhiro waxa uu doonayo uu ordayo waa aakhiro inuu badbaado maxaa yeelay meeshaasi qofka ku badbaada ayaa guulaystay aakhiro taasaa dheer taasaa baaqiya qofkaasi waa mustariix noloshan adduunka ah wuu garanayaa imtixaan inay tahay cudur baa la isku imtixaanayaa gaajaa la isku imtixaanayaa dagaalaa la isku imtixaanayaa nolosha gebigeegu waa imtixaan reexada mu'minku waxay bilaamaysaa dhimashada marka uu gaadho ayay bilaamaysaa sida awgeed ilaahay waxa uu yidhi kullu nafsin dhaa'iqatu lmowt qof walba waa kii dhiman wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama wixii aad soo shaqaysateenna aakhiro ayaa lilisiin buu ilaahay yidhi waa aya ka guulaystay faman zuxzixa can innaar qofka naarta laga fogeeyey ee laga jiiday wa udkhila aljanna ee jannada galay faqad faaz kaasaa guulaystay kaasaa reexaystay kaasaa nastay wama alxayaatu اdunya ilaa mataacu lguruur noloshan adduunku waa guruur waa meel yaroo lagu gaaban weeyaan qofka mu'minkii waka mar alla markuu dhimanayo ayay u bilaamaysaa bishaaradiisii iyo farxadiisii iyo reereyntiisii iyo qosolkiisii mar alla marka uu dhimanayo ilaahay waxa uu yidhi ina aladiina qaaluu rabbuna allah kuwii yidhi allahba rabbigayaga ah uma istaqaamuu kadibna toosnaaday buu ilaahay yidhi tatanazzalu calayhim almalaa'ika marka ay dhimanayaan malaa'ig baa kusoo degaysa maxaa lagu leeyahy allaa takhaafu ha cabsanina meeshaad ku socotaan ha ka cabsanina ilaahay la kulankiisa ha ka cabsanina aakhira ha ka cabsanina naar ha ka cabsanina walaa taxzanuu adduunkii aad ka tagteen iyo awlaadii iyo wixiina ha ka murugoonina waabshiruu bishaaraysta biljanna janna ku bishaaraystaa laleeyahay allatii kuntum tuucaduun ballantii tii nilii boohaye nilii ballan qaaday khalaas reexaysta baa laleeyahay maanta inii bilaamatay reexadii waa mustariix wuu reexaysanayaa wuxuu garanayaa adduunkani inuu yahay meesha yar ee la marayo bes siduu nebigu lahaa calayhi الsalaatu wassalaam maali walidunya aniga adduun maxaa noo dhexeeya buu lahaa nebigu maxaa adduun maxaa iga saaran buu nebigu lahaa adduun wuxuu la mid yahay qof safar ku jira oo dariiqa maro geed yar ku nastay kadibna ka dhaqaaqay adduunku gebigiisa marka la isku daro ilaahay agtiisa wuxuu garanayaa qofka mu'minku kaneecada baadkeega lama dhigmo sida awgeed meesha uu ku nasanayo uu ku reexaysanayo uu u dadaalayo waa hunaag waa xagga waa daarta aakhiro waa la kulanka ilaahay subxaanahu wa tacaala kaasi wuxuu ka tegayaa daartan adduunka ah ee daalka ah ee rafaadka ah wuxuu ka tegayaa daartan imtixaanka ah ibtilaaga cudurka wadata xanuunka wadata rafaadka badata daar aan la dhimanayn qofku noolaanayo uuna xanuunsanayn uu dhimanayn walbahaarayn silcayn imtixaan aan lahayn ayuu gelayaa daar uu ilaahay arkayo maxaa ka weyn oo ka wanaagsan qofkaasi mu'minkii waa mustariix waa kii reexaysanaya waa kii nasanaya haddeed waka
waa ka mu'minka ah, waa kaa nasanaya. sidaa awgeed nabiga calayhi salaatu wasalaam markay dhimashada u timid ee culayskii iyo xumadii iyo kulaylkii iyo sakaraatulmowtkii, gabadhiisii Faatima waxay tiri waa karba abaah, alla aabbahay culayska haysta. nebigu waxa uu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, laa karba calaa abiiki bacda alyowm, aabbaha maanta kadib culays dambe iyo rafaad dambe iyo ma helayo, gaalo ereeriyati iyo silican dambe iyo sakaraad iyo xanuun iyo laa karba calaa abiiki, aabbaha ma helayo. ilaahay buu tegayaa janno, uu reexaysanaya adduunka iyo dhibaatadiisa uu ka reexaysanaya. cabdillaahi ibnu xaraam saxaabigii markii waranka lagu dhuftay xagga dambe uu ka soo galay, xagga hore uu ka soo baxay, waa leeb, waa waran. markii lagu dhuftay waxa uu yidhi fuztu warabbi lkacba, waan guulaystay haddaan mar dhimanayo anigoo mu'mina. jannadii buu arkay. haddaan dhimanayo anigoo mu'mina, anigoo muslima, anoo dariiqa ilaahay, fuztu warabbi lkacba, ilaahay baan ku dhaartay kacbada lahaaye waan guulaystay ayuu leeyahay. uu guulaystay liannahu khalaas diin buu ku dhimanayay, mabda buu ku dhimanayay, xaq buu ku dhimanayay, uu guulaystay, wuu reexaystay. bilaal ibnu rabaax radia allahu canh markay geeridu u timid, haweenaydiisii baa murugootay, waa xusnaah bay tiri, waan murugoonayaayey. muxuu ku yidhi isaga oo la yaaban, bal waa darib ah, maanta waa inaad farxdid, farxadayda ay buu yidhi. wuxuu yidhi gadan nalqa alaxiba muxamadan wa saxba, alla beritoole markay naftu iga baxdo ayaan la kulmayaa nebi muxamed iyo asxaabtaydii. murug ma ah, waa farxad, waan reexaysanayaa adduunkan iyo siliciisii iyo sakaraadkiisii iyo dhibtiisii ayaa ka reexaysanayaa. axibatii fi llaah, waa kuwuu lahaa sayfullah khaalid markuu tilmaamayey, yuxibuuna almowta kamaa tuxibuuna alxayaa. mu'miniintu waxay jecel yihiin dhimashada sidaad mid gaalu ku lahaa, sidaad nolosha u jeceshihiin ayay dhimashada u jecel yihiin. liannahu waa meeshay ku reexaysanayeen. janna sugaysa, wanaag baa sugaya, raali ahaanta ilaahay ayaa sugaya. kama walbahaarayaan, kama murugoonayaan. farxaddoodiiba waxay bilaamaysaa dadka mu'miniinta iyo nasashadoodu markay adduunkan ay ka baxaan. xagguu ma warwaraya, kama murugoonaya. marka axibatii fi llaah, kaasi waa kii mu'minka ahaa, waa kii ilaahay ka cabsanayay, wuu reexaysanaya. ka labaadi waa mustaraaxun minhu, waa mid laga nasanayo dhibaatadiisa, siliciisa, dagaalkiisa, dulmigiisa. dadkaa ka nasanaya, oo dhulkaa ka nasanaya, oo geedaha ka nasanaya, oo xayawaankaa ka nasanaya. xoolihii ummaduu boobayay, dadku dhacayay, dembigiisa fara badnaa. wuxuu iska dhigayay waxaa yar ee dhuuban ee insaanka ah, wuxuu iska dhigayay nin xoog badan oo dadku ku qooqay, dadku ku kibray, wuu dhib badnaa. kaasi maalinka uu dhinto ummaddaa ka nasanaysa, xayawaankaa ka nasanaya, waa laga wala nasanaya. dhimashadiisa waa lagu farxayaa. kii mu'minka ahaa ummadda oo dhan baa u ooyeysa. kan mujrimka ee faasiqa ee xunna, ummadda oo dhan baa geeridiisa sugaysay, way ku farxayaan. wax u ooyaya male. ilaahay isaga oo ka warramaya waxa uu yidhi kuwaasi, ilaahay waxa uu kam tarakuu min jannaatin wa cuyuun wa zuruucin wa maqaamin kariim wa nacmatin kaanuu fiiha faakihiin kadalika wa awrathnaaha qowman aakhariin famaa bakat calayhim alsamaau waalard wamaa kaanuu mundariin. ilaahay waxa uu yidhi samana uma ooyin, dhulna uma ooyin. waa kawa gaalada ee mujrimiinta ee dembiga badan ee gefka badan ee dadka dulmiya. samana uma ooyin, dhulna uma ooyin. imisay ka tegeen nicmado, ummaddii baa ka nasatay. dhimashadooda ayaa lagu farxay. walaal kee tahay marka? makaa waxaa tahay maalinka uu dhinto ummadda oo dhan ay u murugoonayso, dhulka u murugoonayo, samadu camal wanaagsan baa u korayay, oo dadka oo dhan ay u murugoonayaan, u walbahaarayaan. hebel baa dhintay, hebelkii fiicnaa baa dhintay, mise kaa dadku allahu akbar, mujrimkii baa dhintay, kii baa dhintay, kii ummadda dhacayaa dhintay. lagu farxayo dhimashadiisa. kee tahay? labadaasi midkee tahay isweydii. mustariixun wa mustaraaxun minhu, ma mid kaa nasanaya ee rafaadka adduunka ah ka nasanaya ayaa tahay, mise kaa laga nasanayo ayaa tahay? isweydii. waa inuu xalaqada labaad ee soo socota kalimaatun khaalidaat, waa kelimado
waaraya, waa cibaaraad waaraya, waa erayo jiraya. isweydii markaa, ma mustariixun baa tahay mid nasan mise mustaraaxun minhu?